وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في كتابه العزيز: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، أو كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام. إلى القرآن كسوح كل فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا إلى يوي. وحلو بهاي إن دتك مركا أي مغلان قال الله تعالى قال رسول الله نيك أي كمغلان وحاول صوربا ودين وإلهي قول كيسي إلهي يولها ذي أدومني سلاه أنا مولا أدومني سهل وانا mar haddii nin uu hadlayo oo uu diin ka hadlayo wuxuu ka tarjumayaa qur'aankii iyo xadiidkii labadaana annagaana loo soo dejiyey inaan daadaawana maaha dajisku akhrin kaliya maaha ku dhaqan baa looga baahanyay dadku waxay ka saaxa u noqon laayihiin qur'aankii iyagoo saa u akhriyaya madmadow waa la ku yaqaan dhaqan ma jiro maxay waa la baranba macnihiisaa la baranba qaar bartay oo ku dhaqmayna waa jiraan. laakiin ninka bartay nin weyn iyo nin yar wuxuu ahaadaba in looga dambeeyaa loo baahan yahay oo markuu ilaah baa sidaa ku yidhi rasuulka baa sidaa ku yidhi calayhi salaatu wasalaam in markaa layaa loo baahan yahay. waad aragtaan bbcda marka laga dhegeysanayo madaxweyne hebel baa hadlaya, wasiir hebel baa lacagta ka hadlaya, war muxuu yidhi waruu kaaliye markaa la dhegaysanayo nin hadduu hadlo war naga aamus waa laleeyahy markaan kaa dhegeysanay waa laleeyahy. wixii diin ku saabsanna nin ma dhegaysanaya aad buu u yaryahay, nin weelaynayana aad buu u sii yaryahay. weelayn iyo dhegaysi nin laga helay oo dhaqan laga helana aad buu u sii yaryahay. ilaahu intaa noogu dar aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsanahu. mutaabacana laga helay intay dhegaystaan diinkii kuwa allaha laga yeelo. salaada cibaadu diin baa nabigu ku sheegay in badan calayhi salaatu wasalaam inay diinta tiirkeedii ay tahay. waxa uu ka horreeyay saad ogtihiin shahaadateynkaasa macnaheedu uu yahay in qofka marka hore xeradii uu soo galo xeradii muslimnimada qofka isagoo laga helin tuko lagula khitaabi maayo. waa in shahaadata an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulullah waa in laga helaa calayhi salaatu wasalaam ee qofka ka dhacdhacdaa markaasuu qalbigiisu samaanaya oo uu noqonayaa mid u nugul inuu wax walba qaato yuu noqonayaa. markaa ilaahay yuu qari jiritaankiisii amarkiisi baan qaadanaya wuxuu iga reebaa ka hadhaya baxala ka soo boodaysa. nabigii calayhi salaatu wasalaam yaa inuu rasuul ilaahi adeega ilaahay xaggiisa nooga yimid oo wuxuu alla fariimihiisa u soo dhiibay inuu noo soo gudbiye noola yimid. qofka markuu intaa aaminaa waxaa ka soo boodaysa amarkiisa waan qaadana nahyigiisa waa ka hadhaya baa ka soo boodaysa halkaa. laakiin annagu cagsi daalikaana intaa qofka marka laga helo salaaddii baa ku waajibaysa. salaada waa tiirarka diinta ka mid ah. asalaatu cimaadu diin. iyadaas markaa tansiilka aad fiirisid dhowrka juz ilaah markuu qur'aanka nagu amrayo salluu meel odhanaysa marnaba arki maysid waxaad yaquunaad arkaysaa aqiimu salaa iqaamadaasa ka horaysa salaada. maxaa looga hormariyey? waa qaabka la rabo in loo tukada markuu inaad barataan loo baahayay. nin salaadiisa aan kitaab ka qaadanin laa salaata lahu wuxuu isku hadleeyo ilaahay boqorka agtiisa uma jirto. maxay nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu u horey ku soo degay iqra markuu god ku jiray ma ana biqaari markuu yirina waa tajriib ula dagaalaysa xooga u qabtay uu maray xoog u xanuujiyey ilaa 3 jeer markuu sidaa yiri oo isna oranaya iqra nabiguna ma ana biqaari u oranayo inuu dhaqmo akhriyo mucjiso yahayde hadda ka gaari baa waa shaka dheer uu kula dagaal maxaad u oranaysaa baad akhrisid marka muxuu ku dul akhriyay aayadihii اقرأ باسم ربك الذي خلق
عقيده بريا إله بريا خلق الإنسان من علق إله بني آدم كعلق قبل حنجرة كأبوري يبريا اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صفاتك إلهي ولي هي يبريا إلهي وأكاب لي ترى أنت وصل دقيقة لي يقولك قرب قدفته ووسيستي نبي وسيلة بريا عليه الصلاة والسلام ركعتين بوتوتي هكذا الصلاة صلاة وعين كمية ورقتي هذا نبي الصلاة تككي لأور النواد وإن تساقابك إستغنى الصحابة بحكمي صلوا كما رأيتموني يصلي سال عليه هو أركي سال إذا برتكاسو قابك أو تكذبي حلقة إقرأ قصة دين سنوية مركة عليه الصلاة والسلام جهاد لما أوراني داتك وحقارسين لما أوراني يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك داتك وحوشيك ويدن بيسي وأنزل عشيرتك الأغربين ويدن بيسي هورتا عديك مركة هوري صوم لما أوران زكاة لما أوران جهاد لما أوران وحشاشتك لما أوران اقرأ مركة هوري عديك وعلمك برغم عنه ساسوها إن وحيرا ما أنت أنكها الليو إيا الصلاة والخصابسا تدرو تشير الموسى الجبيعي تدرو تشير الموسى الجبيعي waxay toddoba markuu ilmuhu gaaraan salaada farac uu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam hadda farac baraka horeysa markaa iska tukan baa uu laftiisi toddoba markuu intuusan gaarin ka hor waa in macalinkiisa qur'aanku uu dahaarada soo bara oo salaadii soo bara weysadii rukuucdii sujuudii salaada mubdalaad bay leedahay hataa qaabka loo hagaajiya hataa haddii aad barato lafteedii waa inaad ka ilaalisaa waxyaabaha salaada jabinaya waxa salaada buriya mubdalaad waxaa dhehe leedahay oo salaadii kaashi jabinaya kaa haleynaya salaadii marka laa salaata lahu yaa ka soo baxaysa meesha dhaqaaqa faraha badan qofka salaada isagoo ku jira uu codeeyo iska yiraahdo yaa ka mid ah inuu mobaylka iska qabto iska dhaqdhaqaaqo baa salaada mubdalaadkeeda ka mid ah waxaa ka mid ah wax fara badan waxaa ka mid ah in laba rukni oo ficliyiin ah imaamkiisa uu ka hormaro baa ka mid ah taa maalinka la qaadi doonay ilmaha in la soo bara oo xilligaas toddoba intaydan gaarin waxay toddoba tukada loo odhanayaa marka in annagu axkaamta salaada lix jir markaan ahayn inaan soo jabinayay xilliga waalidku dadka ariga uu raacsanayo ama iskuulle hala geey la leeyahay ama kubadda haddaa wadaha cayaara ilmaha la leeyahay xilligaas yaa la rabaa inuu soo jabiyo salaaddaa soo jabiyo dadka waxaa ka maqanba yani way og yihiin haddana dhaqankeeda waa ka maqan naxnu khuluqnaa lilabad inaan abad noolaano nolol abad jiraysa yaa annaga naloo abuuray dhimashada aad arkaysid waa tan iyo taasi kala sociysa taa looma tallaabi kara aakhiro barsakhiya aakhiradii qabrigii qofka uma tallaabi karo isagoo naftooda ka dhayn marka waa faasilan u dhaxeeya nantaqilu min daarin ilaa daarin xaggaasaan u guuraynaa oo taasaa marka abadigii ah halkii lagu waarayay waa halka fariiqun fi ljanna allah naga yeele wa fariiqun fi saciiri ilahay nagama dhige halkaa nin kuunkooba hungowninka soo noqon maasha tan marka maxaa naloo keenay in halkaa sahaydeedii halkan aan ka gurana naloo keenay inaan ka guranno ka xaba qaadano yaa naloo keena meeshan ma dunya ilaa masracatu alaakhira sidaasay dhahay culimmadu waa weli khayr lahu jaaziye markii way noo soo koobeeno adduunya wama ahaba wax kale maahee waa beerta aakhiro halka ninka jooga waxa walba ku beerto yuu halkaa guranaya marka acmaasha saalixa ah oo sameeyana la yidhi annaga isma orane nebigii baana yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay boqorkaaba u soo dhiibay waddadii ayagu ay mariyeen waana marina salaadu forforarsi iyo wejiga biyo iska mariya maaha wejiga laftiisu xag buu leeyahay halkaas intu ka soo baxdo ilaa lafgarhka inta ka dhexaysa dhirir ahaan ballaxanad halkaa dhegtaa ilaa dhegtay fiirkeeda intaa waa qof gacanta ku wareejiya nin baan maalin arkay sidaa wejiga uu maranaya kaliya biya khamiis buu xiraayo halkaa buu geeyey xusuladu ka soo noqonaya weysadiisi adeerkadaa sidaan maaha weysadu sidaa maaha ka daaba badeeda maxaa kuliya buu yiri ninkula dagaal toos weysi saa oo kale ku arkaa masaajidda war ruuxa aankaa dheh war sidaa u fadhiiso war sidaa yeel ninka aan idhaahdo sheekh wala dagaalaya aniguna waayaraa igu xirano nin aamus u dhashay mahmuga aamusi kara
wixii khaldan intaa waa ka hadlaya laakiin waagi dambe caqli baan keenayo adeer inaan wax ku sheegaan rabaayo maan xanaaqaysaa baan dhahaa way adeer ma ii sheeg markaasaan u sheega wuuna iga qaataa marka nin walow annaga naga mida marka waa askari diineed waa inuu diintiisa asaga uu toosiyaa dabeedna ummadda uu toosiyaa ninka xaraf loo siyaadiyo balliquu cannii walow aaya taas hortaalla nabiga baa la khitaabay calayhi salaatu wasalaam ummadda gaarsii aayadba ha ahaatee xukun jarba ha ahaadee ummadda waxaad iga maqasheen waxaad kitaabada ku aragteen ummadda gaarsiiya in marka masaa'ishan annagu idinkala hadalno waa cilmu daruuri maba ahaba sheekh nikaaxi aan idiin toosinno faraa'idka dhaxalkii aan idiin toosinno jaraaxadii aan idiin toosinno laakiin acmaasha adigu ilaahay ku caabudaysid wayna hagaajisaa haddii tan aakhira waxa u horreeya salaadu oo la xisaabayo waayadee haddii tanu eber noqoto walba eber bay noqonayaan waa nin jimci hor sheegay nin gaboobay 70 kor dhaafaad arkaysaa oo abidkii ilaahay sujuud saxa aan ku hor sujuudin baad arkaysaa sheekh shay muxsin muusan ahayn nafti ka adkaanay masjid ku soo ururay laakiin wax sax aan la noqono dad badan baa ismoodaya in ay tukadeen haddana aan tukanin masaajid idilkiis oo salaadu ansaxaya ka hayna in badan baan arkay maxay khatiibka laftiisii baa khudbada arkaanteeda qayba ka tagtagaya waxaan idinku boorinayaa oo aan ku celcelinayaa kitaabka yarka oo la yidhaha safiinaha kitaabka akhrista toddobaad idinku qaadanaa dhabiisuwa sheekh kitaabadii ii bilaabay yaan ka maqli jiray safiino wax salaad uga fiican lama hayaa lama hayo maxay kuwa wareerin mayso arkaanu salaa waa inta 14 gacantay kaa saaraysaa dahaaradii waxa uu sida kaa jabiyey waa 4 waxaana bas isku soo koobaysa iyo qodobeysantaa dhabiyeed toddobaad ka badan kugu qaadan mayso nin sheekhaa soo diyaariyey kitaabkaana akhriyaya nin walba waa ku waajib inuu salaadiisa uu saxo santi kama rabno shilin kama rabno salaadda haddaan ka baxno halkan aan isugu dhimaano ninka baan idin tusayaa salaadu cilmu barashadu yaraan ma laha min almahdi ila alahdi nin weyn baan ahay waxba igama khaldana way ka khaldan yihin nin baa aakhire aada wuu dhintay nin hayasano masaajidka ka bixin buu ahaa manaan baa lagu arkay isagoo dhar laamiya xidhan dhar daamuula oo naarta gudaday sidaa ugu gadoomaya la arkay ninka arkaa weydiiye war maxaa kale buu yiri nin hayasano salaad tukada aan ahayn haa nacam waana haa buu yiri laakiin intaan adduunya joogay hal salaad yaan anoo dahaaro qabin baan ilaahay hor istaagay buu yiri maalin waa salaad kaliya u wad anoo dahaaro qabin oo ama kaayida aan iska soo hagaajin ama maradeedu ayan daahir ahayn ama waxun igu bideen oo aan iska wahaynin baan boqorka hor istaagay buu yiri iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin marka halkanaan soo gaarayo waddadii xagga aad baan soo khalday dahaarada baan soo khalday imisaa dahaaradeenu khaldan tahay waa aniga jimca hore ka hadlayey salaadeenu aasaaskay ka dunsan tahay aasaaska yay ka dunsan tahay mara biyaha aan laga dulmarinin daahir maaha dhul aan biyo laga dulmarinin oo biyuhu si ayna u yaacin mara biyuhu sida ayna uga dareerin oo laga dulkeenin daahir maaha qaar badan annaga ma yaqaanaan iska badaa haweenka guryaha noo jooga iska badaa kuwa warkoodii gabar baa tawalisa hawsha waa in gabadhaa safiinaha meemir loogu shubaa oo la akhrisiiyaa oo la dhahaa xafid saa waa la yidhahda nabigu wuxuu oran jiray calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlayey guurka xaggiisa tunkaxu lmar'a liarba'in 4 qodob baa haweenka lagu xushaa waa maalkii iyo quruxdii iyo qabiilkii iyo diinkii fadfar bidaati diin taribat yadaag hadda dhexdeeda lagaba heli maayo raggu markay diinta barashadeeda ku yaacaan baa hawluuna ku yaacayaan ninka markuu sheekh noqdo yaa wiilashiisa iyo gabdhihiisuba diinta inay bartaan iyo jeclaanayaan ilaa waddada asagaa u jeexay maadaama cilmi dalabka dalka uu ku yiri haweenkuna baran maayaan adiguna fadftii nabigu kaa dardaarmay oo taa guursa uu ku yirina heli maysid la heli maayo oo maxaan ka rabnaa nabigu calayhi salaatu wasalaam fadfar bidaati diin tan diinta taqaana oo ku dhaqanta ku liibaan taribat yadaag waad ku liibaanaysaay maxaan ka rabnaa hadda gabadha dhan kasta anfacaysaayo mara daahir kuu maydhaysaa oo talaaddaa ku tukanaysaa gobol daahiray kuu dhigaysaa waad ku tukanaysaa ilmo sax ah oo wanaagsan intay kuu dhasho yay qur'aankii kuu baraysaa
oo diintii kuu baraysaa oo dhaqankii wanaagsanaa kuu baraysaa ilan ayada mid baa facebook la soo dhigi jiray waxaa la odhan jiray ilmihii markuu caloosh ka baxay uu hadal bartayba qur-aanka ku shubaya say ku dhacday iyadaa waagay uurka lahayd jikada ku jirta guriga fiiqaysa waddooyinka socota qur-aankiiba xafidsanayo qur-aan bay shubaysa gabadhaas markaasaa qur-aanka carruurtii sida cunadii iyadoo cuntoba carruurta calooshay u geliyaan oo ku dhadhaaqayaan yaa qur-aankii oo galay baa carruurta galan markay hadal barteenba carruurtii qur-aanka shubayaa la arkay marka waxay ku dhalaysaa ilmaha noocaas ah dabeedna anashkur liya waliwaalidayka iyay baraysaa ilaahay aniga shukri waalidkaana shukri anigaa ku abuuray iyana way ku dhaqaaleeyeen waqadaa rabbuka an laa tacbuduu ilaa iyaah wa bilwaalidayni ixsaanan waxaas oo dhan bay gabadhii ubadkii kuu baraysaa markaasaa carruurtaadii aad iyo aad aabbo ay ku leeyihin markaad gawowdo dhararkay kaa masaxayaan ya inay jana kugu hayaan bay dareemayaan laakiin taasu maaday inantaasu maadaykaas laa wujuuda lahaa baynana xaggan marna laga helin in meelka laga doondoono mooye marka adinku barta markaad barataan oo kitaabka aad qaadqaataan waxaan xusuustaa 20 sana qiyaasta baa laga joogaa iyo ziyaadaba sheekh aniga sheekhiya waa ii soo martiyey ku yaro anigu aan dhalay markaa hadalkaba aan saxaynin yaa iska ooyey waan dharbaaqa ku dhuftayo sheekh daawud nin duqaal badan buu ahay maxaa rabtaa aabbo kitaab baan rabaa buu hadda aabuus intaa kitaab utu arki jir hadda dan kitaab marka aan siiyo uga jitaliyaa kitaabka kartoon yar buu sheekhu saa isugu laabayo kartoonkii buu dhiibay isagoo qasliib laga tegay marka kartoonku kitaab waysaa marka adigu aad wadda saxa martid hadda ubadkaaguna waddadii saxi maraya aan gurman markaan diinta u gurman nafteena u gurmanayna asalaatu cimaadu diin waa diinti tiirkeedii waa camalkaas had iyo goor soo noqonayo oo had iyo goor aan ilaahay la soo hor istaagayno bal wax sax ah ilaahay aan la hor istaagno haddii aan la hor istaagin annagoo aan tukanin baan inaan tukan isboodayna nin baa nabiga agyima calayhi salaatu wasalaam xadiiskaa dhigaya markaasuu ragcatayn soo tukadayo xadiirkuu salaamay maxaad samaysay waan tukaday sallii fa inaka lam tusalli buu nebigu yiri maadan tukana tukuyi maadan tukana ninkii sidii laba soo tukada haddana uu salaamo nebigu salli fa inaka lam tusalli ku salliya xabiibka calayhi salaatu wasalaam albakiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calay saasaa laga wariya xabiibka bakiilku waa ninka agtiisa magaceega lagu sheego haddana abaalkeeda inuu ka abaal celiyo diiday salliga aad maqlaysiin waa nebiga u ducayntiisii man sanaca lakum macruufan xadiis saas oo kaleeda oranayaa jiray ku macnaha ninkii abaal idiin galaa fakaafi'uuhu u beegtooma maalin buu qale kaa bixiya adna ka bixe maanta iska dhec ninkaa ya fain lam tukaafi'uuhu haddii waxa ninkaanu isiiyey wax laga abaalgudi karaba uusan ahayn oo loo beegtoomi karo maxaan yeelaa fadcu lahu nebigiisa u duceeya saas awgeed waalidka waan aragteeno marna waalidka abaalkiisa lama gudi karo ninka waalidaa garanaye nafteennana ubadkeenna ka hormarinaa hooyada luqmada afkeeda u waday ku siinaysaa adiga saas awgeed baa ilahay wuxuu noo jiidaynayaa waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira soo arkimaysa ilaahu siday yaraantii iisoo galay iisoo hagaajiyeen u hagaaji abaalkooda adigaan kugu wareejiyey abaalgudkoodii anigu ma gudi karo wax walbo aad samaysid marna gaari maysid nabigaasa ka wari calayhi salaatu wasalaam maxaa nicmada u weyneedo ilaahayna siiyo dadka uu siiyo iimaanka ahaa yaana lagu soo dhiibay kaasaan ka shukrinaynaa oo ka mahadcelinaynaa markaan nebiga u duceeyeyno salligiisuna oo duco wax kala maaha allaahumma ilaahow salli u naxariisa wasallim nabadgeli xabiibka calayhi salaatu wasalaam waaba intaa waxaad maqlaysiin nabiga yani wuxuu ximi nabiga salligiisa biayi siiqa rabbi salli cala alxabiib maxamed allahuma salli calaa sayidina maxamed waxaa saa doonta ugu salli hadiya goor ducaa baad u dalbaysaa xad ma laha ibraahim iyo habuu fadli badnaatee marka allah mustacaane marka lagu salaamay wuxuu yiri salli fa innaka lam tusalli war maadan tukana tuku yiri
mar saddexaadka markuu sidaa sameeyey yuu ilaah baan ku dhaaftay saasoo kaleetuu yiriyo wixii anugu aan hadda sameeyey waxaan ahayn maba hayaa aniga jeebkeeda wax ku jira waa intaas yiyo cilmigeeda kala maayo ay bar ninku markuu halkaa marayo unbaa horoo sheegi karaa ugu hadi inaad oranaysa ad halkaa laguma tukado adeer haye macalinkaas hadduu ku yaado yaad u sheegi kadhaa mugta waa saxanna hadduu ku yaado indhaha faraha kaa geliyo waad ka cararaysaa sida hadda uga soo carara oo kaleeta anigu halkaa markuu ninku gaaro unbaa ninka wax loo sheegi karaa ugu hadi halkaasoo ma wada jooganimayo bartaa ma wada joognaa markaasuu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam arkaantii u dureeriyey allahu akbar markaad tirahdid oo niyadda aad la timaadid salaadda maxaa lagu galaa saddex baa lagu galaa fardaan wa sunna lagu galaa baa la yihahdaa imaam shaafici masaa'isha la weydiiyey waa uu ciraaqtiga ka mid ahayd ninbuu masaajidka ku tukanaya intuu arkay oo salaaddii gabgablaynaya yuu salaaddiisa ceebiyey caynkaa maahu yiri halkaa ninka sheekha ka ahaa labadii sheekh midkood buu ahaaye tilmiida abi xaniifa midkood buu ahaa maxamed bin xasan iyo abaa yuusuf inuu abu yuusuf ahaa walbalaynaya mid buusan gaarin sheekhu yiri marka inay saartada ku tukaday intaa weligii salaadeeda wax ka maaragta may nin salaadeeda ceebaynaya yaa masaajidka joogu yiri bal soo weydii maxaa salaada lagu galaa soo weydii su-aal nin cilmiga la weydiiyo marka soo weydii inuu cilmi leeyahay in kaleetuu garanaya marka yuu kala baaraya fardaani wa sunna buu yiri laba qodobo farad ah labaduba midna aan laga tegi karin iyo mid sunno ah oo maxay yihiin fardaanku waa niyaddii iyo allahu akbarti sunnaduna waa rafcul yadayn yaa lagu galaa warkii uu usoo koobayo war saddexdaas markuu ula tegay sheekh wuxuu gartay ninka inuu caalim yahay igu yeer buu yiri cilmigu waa loo yimaadaa buu isla yiri ilaa sheekh uu soo kacayo shaafici u yimid uu markaa laga fadhiistay ii fasahaysaa inaan ku martigeliyo maadaama musaafir aad tahay saas xaafadiisa sheeka dharbeeyey marka allahu akbar takriir keligeed yaa toban qodob baa laga rabaa toban qodob yaa laga rabaa haddaad salaad la timaado midi kaa maqan tahay salaada kuma xirno uu sheekh kuma xirno allahu laamka waa inuu shidan yahay allahu lama ogola waad ka bilowdaa akbar markaad tiraahdo ba'da shidin man shadda baa akbar ninka shida akbar yidhaahdaa lam tancaqid salaatuhu bay zulgaa dhigaysa xaashidii ka dhigaya ibnu qaasim ku usaale halkaa ka eega keligeed allahu akbar nabigu ciyaar maa hawsha maxaad moodaa salaadisha gabgablay maaha iska tuurtuur maaha nin baad arkaysaayo imaamkii rukuucsan intuu soo galo yo allahu akbar intuu soo qarba imaamku mar iskor u qaadaya allahu akbar intuu dhow rukuucaya inuu ragcada hadanuu moodaya ragcaas uma jirto waa eber salaadda haddii la galo cilmigeedu waa bad marka tii buu nabigu u dureeyey calayhi salaatu wasalaam allahu akbarti faatixada akhri buu yiri faatixada lafteeda hool baa ka jirta waa adag baa ka jirta faatixada in macallim qur'aan mujawid ah in laga qaataa loo baahan yahay oo shidadkeeda la hagaajiyaa loo baahan yahay shidadkeeda cadadkeeda ay yihiin iyo halka la saaraya dhammaan safinaha kuu dhiibaya dhowlaan buu kuu dhiibaya halka shid ku dhufu ku leeyahay bismi illaahi allah korkeeda fawqa allaami saasuu ilaa aakhir kuu gelaya waladaalliin fawqa daadkii iyo wallaahi isaga safinaha ku oranaya saa yuru kuu dhiibay oo dhib lahayn allahu mustacaan ninkii markuu saas allahu akbarti rukuucdii ku xasil buuyi dad baa arkaysaa mag inay gaarin in kale shak kaa geliyaba dhag ma isboorta wuxuu isboortismiya maha isboortis maaha jimicsi maaha salaadu jimicsi haba ahaata marka la eego oo dhakhaatiirta gaalada maanta waxay ogaadeen maalin waxaa arkayey qofku markuu sujuudo lafdhabarkiisa kala gogosyada lafdhabarka halkaa dhiiggii baa gala isagoo saa qofka oranamadu gelayaba ma gelayaba annaga ilaah baa noogu talagalay in intaas oran oo markaan sujuuddo halkaa dhiiggu noo galgalo ana caafimaad ka helo ilah baa noogu talagalay yani wax badan baa ku jira oo faa'ida baa ka buuxa soonku waa saa oo kaleeto war sooma aad caafimaadaane waa taxdiirku oranaya calayhi salaatu wasalaam calaa ayi xaal nebigu salaadii halkaa ku xasil buu yiri rukuucdii istaag ilaa laga ogan karo maxamuud wuu taagan yahay nin baad arkaysaa samica allahu liman xamida horuu ka degay yani xataa dhabarkiisa maanu toosin dhabarkaaga toosi halkii markaad faatixada akhriyaysay aad joogtay tag halkaa tag inta lagu oran karo sheekhu wuu taagan yahay kadib aad sujuudi aadaysa haddana
ku xasan sujuud xagee u soo hortaysaa waa meeshaad ugu dhowdahay ilaahay hortiisa markaad sujuudsan tahay yaa naxariista ilaahay iyo dalacsiintiisa iyo darajo bixintiisa aad ugu dhowdahay ku xasan halkaa salaada 4 ragca u badano iyana 5 daqiiqo kama badnaba aayar qaabkaas loo tukanayaa qaabkaas loo tukanayo afcaasha la sameynayana safiina ku diibaya qaabka waxa ka horeeya dibadda loo sameeyo shuruud baa la yiraahdaa tahaaradii waysadii qibladii hal qaabilo awradii hal asturo oo awradii waxa keen ma bayna suura wa rukba inta ka dhaxaysa ya awra nin baa ka saab ku foorayso ya dhabarkii qaawan yahay ninka batala salaatu meel cidna ku taalaya ninkaas eegad waxaasoo dhan baa khaldan inta safiinaha kuu koobaya kitaabkana sheekh waan u yeelo akhriyaya laakiin markii saacada aan ka baxno halka aan joogno aan isqoraysanno saacadda aan isku waafaqno saacad dadka dhammaantood ay soo xaadiri karaan baan diyaarinayna gurna waan diyaarinaa haddii ilaahay haddii ogaada kelmadaha aan ku oranaya aakhirada ilaahay boqorka ku weydiinaya haddaadan maanta aad iga yeelin haddaadan iga yeelin safiina aan ku akhrino oo salaada aan ku toosinno آخر نيك هكا فدي مالكا موصل عينك كورنين ما حد خلطي سؤاشا إلى ونوتينيا سؤاشا جوابت المحين غريسا واي صدواتكي وانكو أخي سكتاكي انتو الله نوان فارمانتي كوا دين تبرتا كل رغم ذكر قرسي الله لا يرو وانمك أدوين انت جوكتا ودرجة وين نيك درجة والمجرو nin diin bartay ku dhaqmay dadkana gaarsiiyey diinta u hiiliyey nabigu mutaliya calayhi salaatu wasalaam ninka sarreeye ma jire dhammaantay ninka allah naga dhigo awlaadda iyo haweenka allah noo hagaajiyo matar khayr qaba maca albaraka roob barwaaqa allah na siiyo kuwa ku shugriya allah naga yeelo kibirka iyo isla weynida iyo doqonnimada nagu labada waa doqonnime allah naga saaro kibirka iyo isla weynida waa doqonnime allah naga saaro bani aadamku waa daciif wuxuu yahay malaha تكبر إله وبركة لك اليوم إسلاميين إله ما إسكال أنا ومريم مساكين معنا قلبي الله خسار أولادكم قدنا له ودين تبر الله نغيره نبي جايس عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقتي والجمعة